Cudurka Baraska Dahsoon wuxuu ku dhuumanayay Ameerika 4,000 oo sano. Daraasad cusub oo la sameeyay ayaa lagu sheegay in barasku uu ku dhex wareegayay dalka jili muddo haatan laga joogo 4,000 oo sano ka hor, taasoo la macno ah in cudurkani uu Ameerika soo galay wax ka hor sidii markii hore loo maleeyay. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Taasi waxay ku salaysan tahay falanqaynta lafaha iyo ilko qadiim ah oo ay sameeyeen cilmi baarayaal ka socda madxadiyo ku yaal Jarmalka, Argentina iyo Chile, waxayna caqabad ku tahay xikmadaha caadiga ah ee ah in barasku uu ahaa cudur ay keeneen dadka reer Yurub ee deganaa qarnigii 16aad. Daraasad dhamaystiran oo lagu sameeyey jajabiyada dnada ee laga helay 2 qalfoof oo bini'aadmi ah, cilmi baarayaashu waxay awoodeen inay la jaan qaadaan walxaha hidde-socodka ee Mycobacterium lebromatosis pathogen oo ah mid yar oo ka mid ah labada bakteeriyada loo yaqaan inay sababto baras. Markii hore waanu ka shakinay maadaama baraska loo arko cudurkii gumaysiga, laakiin qiimayn taxadar leh oo dnada lagu sameeyey ayaa daaha ka qaaday in cudursidaha uu ka mid yahay qaabka lebromatosis, ayuu yidhi anthropologist Daro Ramirez oo ka tirsan jaamacadda qaranka ee Tordoba ee Argentina. La xiriira kubarada ayaa ka digaya barasku ma aha taariikh qadiimi ah sida kiisasku ku soo badanayaan Maraykanka. Saynis yahanadu waxay weli baranayaan lebromatosis, kaas oo dhowaan uun la aqoonsaday. Bakteeriyada kale, Mycobacterium lebre, ayaa nooca ugu weyn ee ka dambeeya baraska. Taariikhdeeda iyo faafitaankeeda si cad ayaa loo qorsheeyey ilaa maanta. Inkasta oo ay jirto yaraanta shaybaarada Ameerika, lebre waxaa laga daba socday kumanaan sano oo Eurasia oo dhan ah, taas oo qayb ka ah sababta cilmi baarayaashu ay muddo dheer u maleeyeen in ay ka soo safartay Yurub oo ka gudubtay badweynta Atlantiga. Dakada baras. Cilmi baarayaashu waxay heleen raad yar oo bakteeriya ah oo ku jira haraaga aadanaha. Daraasad kale oo dhowaan la sameeyey ayaa laga helay raadadka lebromatosis ee hadhaagii Canada iyo Argentina oo dib ugu soo laabtay ugu yaraan 1,000 sano mar kale ka hor intaysan soo bixin dadka reer Yurub. Helitaankan cusub oo riixaya imaatinka sannadihii hore waxay ku daraysaa caddayn dheeraad ah oo ah inaan u baahanahay inaan dib uga fikirno taariikhda baraska. Dina qadiimiga ah waxay noqotay qalab aad u wanaagsan oo noo ogolaanaya inaan si qoto dheer u sii wadno cudurrada taariikhda dheer ku lahaa Ameerika, ayuu yidhi anthropologist Kirsten Boss oo ka tirsan madxadka Blank ee evolutionary anthropology ee Jarmalka. Farsamooyinka horumarsan ee hadda loo isticmaalo in lagu barto dnada qadiimiga ah ee bathogenka waxay noo ogolaanaysaa inaan eegno meelo ka baxsan tuhmanayaasha iyo cudurrada kale ee laga yaabo inaan laga filayn macnaha guud. Isku dayga in la kala saaro taariikhdan cudurku ma fududa. Dadka asaliga ah ee Maraykanka ah ayaa hubaal ah inay la kulmi lahaayeen dhibaatooyin iyaga u gaar ah, laakiin sidoo kale waxaa si adag ugu dhiri lahaa caabuqyada ay soo dejiyaan gumaystayaashu, caabuqyada jidhkooda si liidata loogu diyaariyey. Cilmi baarayaashu waxay kalsooni ku qabaan inay jiraan wax badan oo sheekada ku saabsan marka la eego noocyada casriga ah iyo noocyada hore ee cudurka, gaar ahaan marka la eego lebromatosis. Qoodid kasta oo qadiimiga ah iyo baaritaan caafimaad ayaa siinaya khabiiro badan oo genoome ah si ay ula shaqeeyaan, taas oo markaas sii caawisa fahamkayaga taariikhda cudurka, faafinta iyo kala duwanaanta. Qayb ka mid ah xirfadaha loo baahan yahay cilmi baarayaashu waa garashada waxa la raadinayo, taas oo ay iftiimisay daraasadan. Shaqadii hore ee goobtan ayaa laga yaabaa inay seegtay calaamadihii hore ee baraska, sababtoo ah qofna uma malaynaynin inuu raadiyo. Cudurkani waxa uu ka jiray Chile horaantii 4,000 oo sano ka hor. Hadda oo aan ognahay inuu jiro, waxaan si gaara uga raadin karnaa xaalado kale, ayuu yidhi cilmi nafsiga Rodrigo Norris oo ka tirsan jaamacadda qaranka ee Tordoba. Cilmi baarista waxaa lagu daabacay Nature Ecology Evolution.